Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan ku dhawaaqay canshuur kordhin ballaaran oo lagu soo rogay badeecadaha laga keeno dibadda, taasoo loo arkay inay tahay canshuur kordhintii ugu weynayd tan iyo 1968. Canshuurahan cusub ayaa la filayaa inay saameyn weyn ku yeeshaan dhaqaalaha Mareykanka iyo macaamiishiisa. Laga bilaabo Abriil 5, 2025, dhammaan badeecadaha laga keeno dibadda waxaa lagu soo rogi doonaa canshuur dhan 10%. Laga bilaabo 9 Abriil, dalalka uu Mareykanku la leeyahay ganacsiga dheeriga ah ayaa lagu soo rogi doonaa canshuur ka badan 10%. Canshuurahan ayaa la filayaa inay kordhiyaan qiimaha badeecadaha la soo dejiyo, taasoo keeni karta sicir barar sarreeya. Daraasad ayaa muujinaya in qoysaska Mareykanka ay sanadkan ku bixi karaan ilaa $3,800 oo dheeri ah sababo la xiriira canshuurahan. Ku dhawaaqista canshuurahan ayaa horseeday hoos u dhac weyn oo ku yimid suuqyada saamiyada, iyadoo qiimaha suuqyada ay hoos u dhaceen ilaa $3.1 trilyan oo dollarka Mareykanka ah. Khubarada dhaqaalaha ayaa ka digaya in canshuurahan ay keeni karaan hoos u dhac dhaqaale iyo sicir barar, taasoo saameyn xun ku yeelan karta kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka. Xubno ka tirsan xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa si weyn u dhaleeceeyay canshuurahan, ayagoo ka cabsi qaba inay waxyeello u geystaan dhaqaalaha iyo beeraleyda Mareykanka. Dalal ay ka mid yihiin Kanada, Mexico ayaa durbaaba qaaday tallaabooyin aargoosi ah oo ka dhan ah badeecadaha Mareykanka, taasoo sii murjin karta xiriirka ganacsiga ee caalamiga ah.